munaasabadii xuska 18 May maalinta qarannimada Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm ee cariga Sweden. munaasabada ka soo qayb galay wufuud fara badan sidoo kale shacbi weyne fara badan oo ka socda jahliyadaha Soomaaliland ee ku dhaqan wadankan Sweden sidoo kale xisbiyada qaranka Soomaaliland sidoo kale wufuud iyaguna ka socda baarlamaanka wadanka Sweden iyo ganacsato markaa ka dhisan amaba ku dhaqan wadankan Sweden. munaasabadii 18 May ee ka dhacday magaalada Stockholm ee cariga Sweden oo lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu ballaadhnayd ee ka dhacda wadanka Sweden tan iyo intii loo aasay dhidibada qarannimada Soomaaliland ayaa waxa halka khudbada ka soo jeediyay ka soo qayb galayaasha iyaga oo ku tilmaamay munaasabadan inay tahay mid si weyn loo weyneeyay isla markaana qiimo ugu fadhida guud ahaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Bismillahirrahmanirrahim. mudane iyo marwooyin marti sharafta aadka u quruxda badan xidhan ay hubo u yihiin calaamadihii iyo calankii Soomaaliland farxad weyn bay caawin tahay in aan idin kala qayb qaato xafladan amba maalinta qadarinta leh ee qarannimada Soomaaliland. waxaan sidoo kale halkan caawa ka salaameynaa dalkeenii hooyo oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraayo iyo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici iyo marwadiisa iyo dhammaan mas'uuliyiinta dalkeeniba aad baan u salaaminaa. horta marka hore ummadda reer Soomaaliland meel joogtaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair mustabshiriin. gaar ahaan waxaan ciid wanaagsan leeyahay ummadda reer Soomaaliland ku dhaqan Stockholm Sweden. taariikhda Soomaaliland iyo maalintan qiimaha ay leedahay waxa dhacday in ilaahay taab kasta aanu gale oo dhiig qiimo badan ku baxay in ku guuleysanayn 19 kii la soo celiyo calankeeni waa la soo noqday ma waxaanu calankii 6 keenu qaadanay 6 Jumba aanu dib la soo noqonay isagoo sidii aanu qaadanay waxa Soomaaliland markaa u bilaabantay halkan kale oo nabadda dhismaheega waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland dibadda iyo gudaba oo hogaaminayo madaxweynahooda Axmed Maxamed Siiraayo iyo madaxweyne ku-xigeenka labadaba waxaanan leeyahay reer Soomaaliland meel kasta oo aad joogtaan dibadda iyo gudaba ku ciida nolol caafimaadsan. taasi waa taa marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qolada soo qaban qaabisay xafladan oo ay hogaaminayaan Sakariya Wacays iyo Dalladu run ahaantii ma hawl yara barnaamij caynkan oo kale in la soo qaban qaabiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waajibaad laydinka sugayay baa ka soo baxdeen. mar saddexaadka waxaan u mahadnaqayaa madaxda qaranka wixii ka jooga iyo dhammaan dadweynaha xaadirka ee xafladda inala jooga dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. caawa waa habeen qaali ah waa habeen ciida waa habeen shacabka Soomaaliland gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan ay u dabaaldegayaan maalin qaali ah. waxaan idin leeyahay meel kasta aad joogtaan intay maqlaysaa inta TV-ga daawanaysa inta meel walba joogtaa ciid wanaagsan sanadka sanadkiisa ku gaadha bashbash iyo barwaaqo. iyaguna halka eraya mahadnaq ah iyo soo dhaweyn ahba intaba ka jeediyay xildhibaanadii ka soo qayb galay munaasabada 18 May ee ka dhacday magaalada Stockholm iyagoo ku tilmaamay in qarannimada Soomaaliland ay tahay mid rafaad fara badan loo soo maray isla markaana ay Soomaaliland ku tallaabsatay dhinac walba haday tahay dhinaca dimuqraadiyadda iyo hanaanka dawladnimo iyo nabadgelyada ay ku caanamashay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xildhibaanadan Swedish-ka ah ay si weyn uga hadleen. dadweynaha ka soo qayb galay ayaa iyaga la fahaantooda waxa wajiyadooda ka muuqatay farxad saa'id ah iyagoo isugu hambalyeynayay iskuna salaamayay ciid wanaagsan maalinta qarannimada Soomaaliland. dalmar telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Stockholm cariga Sweden.